Armin Meiwes, oo ahaa farsamayaqaan dayactirka kombiyuutarada oo Jarmal ah, kaas oo sanadkii 2001 qof ay internetka ku wada xiriireen nolosha hilibkiisa ku cunay, ayaa loo oggolaaday inuu socod la ilaalinayo ku maro magaalada dhexdeeda. Dad qaladkan ayaa xilligaasi wargeys ay qaniisiinta lahaayeen ku qoray xayeysiis uu ku baadigoobayo nin la gowraco, kaas oo uu dhibanaha ku helay ka hor inta aanu gowracin. Meiwes, oo 58 jir ah, ayaa loo xiray muraayado madow ama ookiyaalo iyo koofi si aan loo aqoonsan, waxaana loo kaxeeyey gobol kale oo ka baxsan halkii uu ku xirnaa si uu lugu-baxsi u sameeyo oo uu magaalada u dhex maro. 2 askari ayaa raacda, waxaan mar kasta u kaxaynaa gobol kale sababo amni darteed, halkaas ayuuna magaalada ku dhex lugeeyaa. Sidaasi waxaa wargeyska Bild u sheegay dembi baare. Bishii Maaj ee 2001 ayuu Bernard Brandes, oo 43 jir ahaa, kala baxay wadnaha kadib markii uu ka gooyey xubinta taranka, saliid ku shiilay oo uu cusbo, toon, filfil iyo jows ku darsaday, sida uu dambiilaha ku sheegay waraysi telefishinka laga sii daayey sanadkii 2007. Mr. Brandes, oo ahaa qofka la dilay, ayaa Meiwes kula kulmay guri beer ah oo ku yaala gobolka Hessen ka hor inta uusan falka dhicin. Guriga waxaa lahaa hooyada dambiilaha, wuxuuna dhibanaha laqsiiyey 20 xabo oo kaniiniga hurdada ah si aanu xanuun u dareemin. Labadoodaba waxay isku dayeen inay isla cunaan xubinta taranka, balse Brandes xaalad kale ayuu ku jiray. Markii Mr. Brandes uu geeriyooday, wuu jarjaray qayb ayuuna bac ugu xirtay hilibkiisa si uu u cuno maalmo kala duwan, wuxuuna isticmaalayay hilibkiisa ilaa dhowr bilood. Mar kale ayuu xayeysiis kale oo labaad geliyey internetka, waase la qabtay kadib markii arday Australian ah uu bilayska ku wargeliyey sanadkii 2002. Meiwes wuxuu adeegsaday bog internetka ah oo la dhaho The Cannibal Cafe ama kafateeriyadii dad cunka si uu halkaas uga helo qof uu cuno. Wuxuu ku qoray bogga inuu raadinayo 18 jir ilaa 30 jir la gowraco oo hilibkiisa la cuno. Sanadkii 2006 ayaa lagu helay faldambiyeed qaarijin ah iyo nabadda inuu carqaladeeyey, waxaana Meiwes lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii laga noqday xukun ka horreeyey kaas oo sanadkii 2004 lagu riday oo uu ku mutaystay 8 sano iyo bar xarig ah. Dacwadii labaad ee lagu soo oogay, nin cilmi nafsiga yaqaana ayaa sheegay in Meiwes uu faldambiyeed kala samayn karo maadaama uu weli haysto qiyaali iyo inuu rabo hilib qof da'yar ah. Waxaa xilligaasi jiray dood sharci ah oo tilmaamaysay in dilka qof isaga raba in nafta la dhaafiyo aan lagu tilmaami karin gacan ku dhiiglanimo ama qaarijin. Hadda Meiwes waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay maxbuus saaxiibeed furfuran oo edeb leh, kaas oo wax u akhriya, ka caawiya maxaabiista kale qoraalka, aada kiniisadda, isla markaana ka shaqeeya doobiga ama labadaayada dhaqdhaqista ee xabsiga. Inta aan lagu ridin xukunkii ugu horreeyey 2004, cilmi nafsiyaqaan ayaa sheegay in Meiwes uusan waalnayn balse naftiisa aysan xasilnayn. Markii la maxkamadeynayay, Meiwes wuxuu sheegay inuu weligiis ku riyoon jiray inuu wiil walaal ah oo la dhashay oo ku dhex nool yeesho, wuxuuna ku fikiray in riyadaas ay ku rumoobi karto keliya dad cunnimada. Maxkamadda Kassel ayaa ka fikiraysa codsi labaad oo dambiilaha looga sii daynayo xabsiga, taasoo ah in muddo iyadoo la ilaalinayo la tijaabiyo dhaqan wanaagiisa bulshada. Hase yeeshee, bishii January ee sanadkan 2020, xafiiska dacwad oogaha gobol ee magaalada Frankfurt ayaa codsi u gudbiyey maxkamadda, wuxuuna ku booriyey inay diiddo codsiga sii deynta sharafeed maadaama aysan jirin saadaal bulsho oo wanaagsan. Qarankiisa oo la yiraahdo Herald Agmel ayaa ka hor yimid codsiga, wuxuuna ku dooday in saraakiisha xabsiga ay sheegeen in xataa haddii albaabadiisa la furo oo laga tago maalin dhan aanay waxba dhacaynin, taas oo loo fasiri karo inuu kala jeeday in Meiwes uusan samaynaynin wixii uu horey u sameeyey oo kale.